السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان وادي السلام أخيارتا مeel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogtaan ku soo dhawaada warka Hagaag TV. Balsada awood hadda ku cusubta channelka fadlan subscribe saar channelka share oo la wadaaga asxaabtada si ay kula daawadaan wararka xiisaha badan aan halkan soo gelino like-na saar si uu meel fog gaadho waad ku maasan tahay. Aan ku bilaabo muxuu farmaajo lacag ugu bixinaya doorashada dalka madaxweynaha ku-xigeenka Puntland waxa uu ka yeeray rajada dani ra'iisul wasaare Roble oo dama qorsheysan dhigaya Faysal Cali Waraabe oo dagaal sokeeye ka hadlay muxuu si daaran yahay dagaalkaasi dagaal cusub ayaa ka socda Puntland intaasi daawadayaal waa qodobada warkayga ugu xiisaha badan u diyaar garoob qodobadaas oo dhameystiran aan ku bilaabay sida horudhaca warkayga aad ku maqlayseen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lacag badan ku bixinayay kursiga sare ee dalka kadib markii afar maamul goboleed madaxdood oo Muqdisho isku soo bahaystay ay diyaar u yihiin inay kursiga ka tuuraan xukuumadda Farmaajo waxaana madaxda shalay Muqdisho soo gaaray kamid ah madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo isna shaaciyay inuu taagan yahay murashaxnimada madaxweyne ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Madoobe Islaan oo isna taageero buuxda u ah madaxweynaha maamulka Puntland saaxiibo dhowna ay yihiin Saciid Cabdullaahi Dani oo isna u taagan xilka murashax madaxweyne ee dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa isna taageero buuxda u ah Saciid Dani madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftigareen oo markii hore saaxiib dhow la ahaa Farmaajo ayaa hadda xaaladooda faraha ka baxday waxaanu taageero weyn u hayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo mucaaradka oo taageersan arrinta uu ra'iisul wasaare Roble sameeyay ee ah in Farmaajo ka soo horjeestay laakiin mucaaradku waxay sax u arkaan arrinta uu ra'iisul wasaare ku dhaaqay Roble ayaan la ogeyn inuu soo sharaxi kursiga sare ee dalka iyagoo ku hawlan inay dhaafiyaan kursiga madaxweynaha hadda jooga ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sida ay soo sheegnay diyaar u ah inuu lacag badan dul dhigayo sidoo ugu guuleysan lahaa kursiga mar labaad sida ila ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya ay noo sheegeen in xildhibaanada hadda la soo doortay uu Farmaajo lacag badan siin doono haddii ay doortaan madaxweyne Farmaajo ayaa isagu iska dhiga marinaya hadallada kaga imanaya mucaaradka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble balse Farmaajo ayaa laga cabsi qabaa in haddii uu kursiga ku guuldaro inuu Muqdisho ka horiyo colaad halis gelin karta nafo lagu waayo iyo maal ku dambeeyo halkaasi Farmaajo oo maagan haddii uu ku guuldareysto doorashada inuu inqilaabi doono dalka madaxweyne Farmaajo ayaa wax walwal ah ka qabin doorashada hadda la qorsheeyay inay dalka ka qabsanto Farmaajo iyo xukuumaddiisa waxay indhaha ku hayn doonaan doorashada iyo sida ay u dhacdo walow dadka siyaasadda falanqeeya ay saadaalinayaan in doorashada ku guuleysanayo madaxweyne Farmaajo iyagoo mucaaradka iyo ra'iisul wasaare Roble u qoyskooyay waxaana u soo jeediyeen inay afka leerta ka qarsadaan wali daawadayaal waxaan ka wada soconaa Hagaag TV waxaan ku sii soconay qodobadeena madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland Axmed Cismaan Karaash ayaa ka soo horjeestay madaxweynaha maamulka Puntland ahna murashax u taagan xilka madaxweyne ee dowladda federaalka Soomaaliya Karaash ayaa Saciid Dani u soo jeediyay inuu iska casilo xilka madaxweyne ee hadda ka hayo Puntland isagoo hore u sheegay Saciid Dani haddii uu ku guuleysan waayo qabashada xilka madaxweyne ee dowladda federaalka Soomaaliya si ahaan doono madaxweynaha Puntland Axmed Karaash ayaa ku tilmaamay arrinka Dani qaatay inaanu sax isagoo murashaxa inuu sii hayo xil dawladeed Axmed Karaash ayaa isagoo ka soo jeeda beesha dhulbahantay dadka siyaasadda faaqida waxay sheegayaan in Axmed Karaash uu doonayo inuu xilka madaxweyne ee dowlad goboleedka Puntland u taagan yahay isagoo sida darteed si riixayo madaxweyne Dani waxa maalmihii u dambeeyay xifaaltan siyaasadeed ka dhaxeeyay Dani iyo Master Axmed Karaash ayaa nasiib darro u arkay madaxweynaha doonaya xil kale ee haddana aan iscasilin waxaanu sheegay inaanay ahayn Puntland meel loo soo qarashiyo mushaar doonto waxaanu carabka ku adkeeyay iscasil madaxweyne beesha dhulbahante ayaan iyadu wax xil madaxweyne ka qaban Puntland waxaanay ka tirsan yihiin Somaliland oo inta badan xil wasiiro ku leeyihiin balse hadda ayay murashax madaxweyne ku leeyihiin Somaliland waa hadduu soo baxee waxaan wataa xisbiga waa bari oo maandhow la aasasay murashaxaasi haddaba aan ku laabanay Puntland Axmed Karaash ayaan sida hore u soo sheegnay ee dadka siyaasadda faaqida ay leeyihiin isaga Axmed Karaash doonaya xilka madaxweyne ee Puntland sida darteedna waxa uu sii riixayaa Saciid Dani balse wax wara madaxweyne ku-xigeenka Puntland kama soo saarin waxay dadku shushubayaan ee ah inuu doonayo xilka madaxweyne ee Puntland ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isagu damacsan inuu damin hor leh u dhigo Farmaajo oo doonaya xilka madaxweyne ee uu hadda hayo inuu mar labaad ku guuleysto hogaaminta dalka Roble ayaa isagu dhaqaaq kasta oo uu fuliyo Farmaajo si aayar ula socda Roble ayaa lagu xantaa in uu ka dambeeyay dilkii Allah u naxariistay abwaan taageersanaa Farmaajo
abwaanka oo habeen hore lagu dilay Muqdisho. Abwaan Badal Jaamac Allah u naxariiste Roble ayaan wax tacsiya u dirin ehelada iyo bahda Soomaaliyeed ee ka baxay abwaanku. sida la ogsoon yahay Farmaajo ayaa tacsiya tiiraanya leh u diray ehelada iyo saaxiibada uu ka baxay abwaanku. Haddaba ila wareedyo ku dhow ra'iisul wasaaraha ayaa noo xaqiijiyay inuu damacsan yahay inuu jallaafo ama dabin adag u dhigo Farmaajo iyo xukuumaddiisa. waxaa maalmihii u dambeeyay colaad xooggan ka dhaxaysay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo aan wali damin inay walaaqanta mooyaane. Roble ayaa isagu waxaan jabaad ah u dirin Farmaajo, balse wararka aanu helayno ayaa sheegaya in Roble doonayo inuu siyaasadeeyo doorashada dalka isagoo codad tiro badan u iibinaya Xasan Cali Khayre oo ay isku beel ka soo wada jeedaan si uu ugu guuleysto doorashada dalka. Xasan Cali Khayre oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka kadib markii khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo Farmaajo in xilka ra'iisul wasaarenimo laga tooro subax uu ku soo waajahna xafiiskiisa uu ka ahaa ra'iisul wasaare laga celiyo kadib waxa ku dhawaaqay in la casilay ra'iisul wasaare Cali Khayre madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. kadib Khayre waxa uu isu sharaxay inuu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya. Roble ayaa isagu taabacsan Khayre inuu noqonayo madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo aadan. Roble waxa uu doonayay inuu dabin naxdin ku Farmaajo oo siyaasadeysan u dhigo Farmaajo iyo xukuumaddiisa. waa tahay daawadayaal, waxaan ka wada soconaa wali Hagaag TV. fadlan daawada subscribe sar channelka, like-na saar oo nagu dhiirigeli commentina ka soo bixi muuqaalka haddii ku cajabiyay. waa tahay haddaba Soomaaliland aan ku laabanaynahay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee UCD Injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe ayaa digniin adag ka soo saaray dagaal sokeeye oo ka qarxay magaalada Hargeysa, taasoo salka ku haysa dib u dhac ku yimaada doorashada oo ay wado xukuumadda madaxweyne Biixi. Injineer Waraabe oo warbaahinta la hadlay ayaa muujiyay walaaciisa ka aadan inay waayaan cid kula daabaqda reer Soomaaliland haddii ay xabad ka bilaabato, isagoo hoggaanka talada haya ugu baaqay in xalka mushkiladaha taagan loo daayo in dheergaradka bulshada. xalkeenu ma aha in aan beelo u kala baxno. haddii aad dhahdaan reer hebel ayaa sidaas sameynaya, waa la fahmi karaa waxa ka dhalan kara. dadka la xirayo ee xabsiyada laga buuxinayo waxa qayb ka kalitalisnimada Soomaaliland maanta ay ku taagan tahay meel halis ah. maanta haddii aan isqabanno ma jirto cidna kala qabanayso sida qolyaha xamar oo kale, ayuu yiri Faysal Cali Waraabe. hogaamiyaha xisbiga UCD ayaa dhinaca kale sheegay in xaaladda haatan ay marayso in xabsiga laga buuxiyo dhalinyarada haldoornimada u ahaa bulshada. waxaana dadka u bidhaamiyay inaa wax wanaag ah laga filan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. muuse talaha ka sugana ee aan tashano oo wanaaga ha ka filna reer Soomaaliland. dhibaato dadka oo dhan way haysataa, dawlad xumaatana waa taa dhalinyaradeeda gabayeysa. waa inaga reer u kala baxnay, waa inaga iscaayane hala kala badbaado ayaan leeyahay, ayuu yiri Faysal Cali Waraabe. si kastaba xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo UCD ayaa dhigooda kulmiye ku dhaleelay qorshaha lagu ballaarinayo asxaabta. waxay ku tilmaameen tallaabooyin laga dib dhigayo doorashada si waqti kale oo xafiiska u sii jooga madaxweyne Biixi. haddaba guddiga xaqiiqa raadinta ee dagaalkii magaalada Boosaaso ku dhex maray ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ayaa soo bandhigay macluumaad la xiriirta khasaaraha guud ee uu sababay dagaalkaasi. xogta ay soo bandhigaan waxa ay ku eegeen dhinacyada dhimashada, dhaawaca iyo khasaaraha maaliyadeed ee uu dagaalku sababay. guddigan oo ka kooban 13 xubnood oo badan isimada Puntland ayaa xogta ay baahiyeen oo ay la wadaageen warbaahinta waxay ku sheegeen in dagaalkii dhacay dhamaadkii sanadkii hore ee 2021 uu sababay inay dhintaan 22 ruux, 68 kalena ay ku dhaawacmaan, kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar. sidoo kale waxaana ku khasaaray lacag lagu qiyaasay 807,500 dollar. guddiga oo dhawaan la kulmay madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in Siciid Dani oo haatan Muqdisho ku sugan looga baahan yahay inuu bixiyo lacagta khasaarahaas maaliyadeed maadaama uu isaga hore ugu ballan qaaday arrintaasi. Puntland ayaa laga warsugaya falcelinta warbixinta guddiga oo la soo saaray xilli Siciid Dani uu haatan ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka uu ka bilaabayo ololihiisa doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. dagaalka Boosaaso oo dhowr maalin socday ayaa ka dhashay xilka qaadis uu Dani ka sameeyay taliyihii ciidanka BSF Maxamuud Cismaan Diyaar
iyadoo ina Diyaano oo iska diiday xilka qaadista waxayna dood adag oo arrintaasi ka dhalatay ay keentay inuu gacan ka hadal isu bedelo waxaana dagaalkii xarunta gobolka Bari looga adkaaday kooxda taabacsan madaxweyne Dani. akhyaartan jecelnahay oo intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warkii oo kala socoteen Hagaag TV fadlan daawade haddii ay tahay booqashadaadii koobaad fadlan ugu soo biir oo like saar subscribe saar oo share oo la wadaag asxaabtaada si ay kula daawadaan wararkan halka soo galino.